السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركلة السودة وهذا أدي هذا مهد سنتهين ما أنت وثلاثة وأنا لبضة بيش اللي حاد جون سنة كلبضة كن إيه اللحية لباتنك مقال كانوا حربا إن ندي كله وذاقو ويلكي سومالي جاهاي مالنتي عيد مقالة الشوك بي قبل كمينيسوتا كودلي ويلكي أو سوماليا كدب سلادي عيد الأضحى أو شلي دعوة لغسو أوغي هذا بدعوة سمحيهين labadooda maxaa dhex maray ka hor inta uusan dilka dhicin oo boolisku ay faahfaahiyeen iyo maxay tahay hubka sharci darrada uu watay wiilkan wax dilay oo aan bal loo ogolayn in uu qaato oo horey looga mamnuucayna waan idinla wadaagaya waxa la yiri labadii xaq darro ku heshiisa xaqa ay ku dagaalaan Trump iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu oo shalay telefoonka qaad markay ku wada hadleen hadalla kulul ay dhaxmareen Trump oo Netanyahu caayay maxay yihiin hadallada kulul ee dhaxmaray iyo waliba labada qoraal ee kala duwan oo barahooda bulshada ay soo dhigeen Trump iyo Netanyahuna waan idinla wadaagaya balse marka hore soo dhawaada waxaan maalmihii u dambeeyay aan idinla wadaagayay dilka wiil Soomaaliya oo magaciisa la yiraahdo Khalid Ibrahim Cabdi oo 26 jir ah oo maalintii ciida ee Arbacadii la soo dhaafay oo lagu dukanayay Canterbury Park Expo Center oo ku taala magaalada Shookabi in salaadii ciida markii la tukaday kadib ciidul adxaha halka goobtii lagu tukaday salaada lagu dilay haddaba Khalid jimcihii ayaa la aasay waxaana qamiistii hadda wararku waxay sheegayaan inuu isagu isu soo dhiibay laakiin boolisku ay sheegeen in ay u soo qabteen dilkii Khalid wiil magaciisa lagu sheegay Maxamed Cabdirasaaq Raage oo 28 jir ah ولينا حبسيga ayuu ku jira marka shalay oo isniin ahayd ayaa dacwada lagu soo oogay Maxamed Cabdirasaaq Raage dacwadaha lagu soo oogayna waxa ay kala yihiin laba dacwadood waa dil heerkiisu yahay midka labaad iyo waliba haysasho hub sharci darro ah ayaa lagu soo oogay Maxamed haddaba waxa boolisku ay faahfaahin ka bixiyeen maxaa dhacay ka hor intii dilka uu Maxamed uusan u geysan Khalid maalimadii Arbacada ahayd salaadii ciida kadib xaaska waxaan ognahay inay la socotay Khalid xaaskiisa oo uur leh maadaama dhawaan uu guursaday una filayay ilmihiisii ugu horeeyay xaaskiisa ayaa la socday aad ayayna u faraxsanaayeen maadaama maalin ciida ay ahayd isla markaana ciidii ay tukadeen kadibna qorshayaashoodii kale ee u degsanaa ay doonayeen in ay guda galaan haddaba waxa dacwadaha markii la soo bandhigay shalay maxkamadda boolisku ay sheegeen in Raage uu ugu yimid Khalid baakinka isla markaana xaaskiisana ay la socotay aadna ay u faraxsanaayeen maadaama salaadii ciida ay tukadeen waxana Maxamed uu ku yiri Khalid waxaan doonayaa inaan kula dagaalo laakiin Khalid waxa uu yiri anigu ma doonayo in aan kula dagaalo please iga tag waxaan ma doonayo in aan adiga kula dagaalo ayaa Khalid uu ku yiri Maxamed kadibna Raage waa Maxamed Cabdirasaaq Raage ayaa waxa uu uga daba yimid baakinka isagoo dhahaya haye nakeen aan dagaalanne kadibna mobilkiisa ayuu la soo baxay Maxamed ayaa la soo baxay wiilka dhimanaya ayuuna ku duubaya mobilka ayuu la soo baxay Maxamed waxaana uu bilaabay in uu duubo kadibna Raage ayaa waxa uu bilaabay in uu feer ku dhufto Khalid isla markaana labadoodu waa ay wada dagaalameen isla markaana Khalid waxa uu ku qaylinayay please George dagaalkan marka Maxamed ayaa doonayay inuu la dagaalo Khalid waa wiilka dhimanaya Maxamedna waa wiilka dilaya Khalid kadibna qof goobta ka agdhawaaya waxa uu isku dayay in uu kala fujiyo labadooda markaas kadib Khalid waxa uu isku dayay inuu ka cararo Maxamed because maxaa yeelay xaaskiisii uur lahayaa la socota ma doonayo xaaskiisii ilmihiisa aan wali dhalan inay wax soo gaaraan amaba isaga nafsad ahaantiisa markaas kadib waa uu ka cararay Raage kadibna bistooladiisa ayuu la soo baxay laba xabadood ayuuna ku riday waxaana la leeyahay mid kamid ah xabadka ayay ka haleeshay waxaana dacwaduhu ay sheegayaan ilaa ay hadda ujeedka inaan la ogeyn labada nin horey miyay wax uga dhaxeeyeen ilaa ay hadda lama oga ujeedka uu Maxamed dagaalka ula soo doontay wiilkaasi dhintay ee Khalid laakiin waxa la arkayay markii Maxamed uu yimid meesha laga soo galo Canterbury Park Expo in uu aad u dhoola cadeynayay isla markaana sidoo kalena firfircooni uu muujinayay sida muuqaalada kaamirooyinka ay duubeen kadibna boolisku waxay sheegeen in subaxii dambe ee Khamiista uu Khalid isku soo dhiibay Scott County jailka ilaa haddana wali halkaasi uu ku xiran yahay marka ninkan wax dilaya ee Maxamed Cabdirasaaq Raage horey dambi kale ayuu u soo galay
hub waa laga mamnuucay in uu qaato. Marka hadda waxaa la leeyahay sharci darro ayayba ahaydba in uu bustooladan ama hubkan uu watay. Raage horey ayaa dembi loogu soo oogay heerkiisu yahay heerka 3aad ee feloniga kadib markii weerar uu geystay bishii March ee sanadkii 2022 Bloomington ayayna arrintaasi ka dhacday. waxaa la leeyahay Maxamed waxa uu isagoo isticmaalaya crowbar waa bir islamarkaana waxyaabaha lagu qaado mararka qaarna waxyaabaha lagu furo waa birtan aad arkaysaan ayuu waxa uu ku garaacay qof kadibna boolisku ayaa yimid goobtii waxaana arrintaasi ay ka dhacday wadada 78 Streetka iyo Nicollet Avenue meesha ay iska jaraan. kadibna ninkan ayuu u yimid Maxamed islamarkaana si isdaba joog ah ayuu birtaasi ugu garaacay. haweeney xitaa isku dayday inay soo farageliso arrintan ayaa sidoo kale uu ku dhuftay birta. riboodka booliska sanadkii 2021 sida uu sheegay. markaasi kadib waxaa la helay qofkii dhibanaha oo dhiig ka socdo meel block u jirta motelka la yiraahdo Super 8. qofkaasina waxaa la leeyahay waa uu mir daboolmay islamarkaana waxaa la arkayay xitaa jirkiisa dhaawacyo kala duwan oo ku yaala oo kasoo gaaray birtii uu Maxamed ku garaacay. kadibna Raage dembigiisa weerarkaasi waa uu qirtay. sanadkii ku xigay ee 2022 ayuu dembigiisa qirtay waxaana lagu xukumay 3 sano oo probation ah oo lala soconayo dhaqdhaqaaqiisa haddii hub kale uu qaatay iyo waxyaabahaasi. islamarkaana hub waa laga mamnuucay inuu qaato. sidaas darteed waxaa la leeyahay hadda hubkan uu wato xitaa sharci darro ayay ahayd oo waatan dacwadaha kale lagu soo oogay. marka Maxamed hadda waxaa la sugi doonaa kolley xukunkiisa waxa uu noqon doono iyo haddii dembigiisa uu qiran doono. haddii dembigiisa uu qirto waxaa laga yaabaa in xukunka laga qafiifiyo. marka waan arki doonaa waxyaabaha kasoo kordha laakiin sidaasi ayay boolisku ku sheegeen sidii ay wax u dhaceen maalnimadii Arbacada ahayd markii Khalid uu dilayay Maxamed Cabdirasaaq Raage. allah u naxariista ayaan leenahay. wiilkaasi wiil waxa uu ahaa arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqa gaar ahaan ururada shaqaalaha mid kamid ayuu ku jiray. xitaa dad fara badan oo cadaan ah oo ammaanaya ayaan arkayay wiilkaasi oo dhahaya wiil aad u fiican ayuu ahaa. marka allah u naxariista ayaan leenahay. xaaskiisana allah ka samar siiyo maadaama ay uur leedahay islamarkaana ilmahoodii u horreeyey ay hadda ay sugayeen. dhinaca kale shalay waxaan ognahay oo sida aan muuqaalkii shalay idinku sheegaba Iiraan wadahadaladii Mareykanka ay la lahayd inay joojisay. arrintaasina ay ka dhalatay dagaalka ay Israa'iil iclaamisay inay ku qaadayso magaalada Beirut ee caasimadda Lubnaan iyo weliba hareeraheeda dadkana ay ugu baaqday inay isaga guuraan. Trump arrintaasi markii uu maqlay isla markiiba waa kii taleefanka qabsaday oo Netanyahu wacay. laakiin waxaa la leeyahay qadka taleefanka si kulul ayuu Trump ula hadlay ninka Netanyahu waa uu bahdilay weliba waa uu caayay. hadallada ay isweydaarsadeen ayaan marka hore bal idinla wadaagaya. Trump wargeyska Axios ayaa waxa uu soo tabinayaa in Trump uu Netanyahu ku yiri war maxaad samaynaysaa weliba ereyga caada F-wordka uu ugu daro yiri maxaad samaynaysaa. Trump waxaa la leeyahay aad ayuu u carooday islamarkaana si toos ah ayaa Netanyahu waxa uu ugu yiri war xabsi ayaad ku jiri lahayd haddii aniga aysan ahaan lahayn xilligan. Trump ayaa Netanyahu ku dhahaya ma waalan tahay ayuu ku yiri maxaa yeelay xabsi ayaad ku jiri lahayd aniga la'aantay ayuu leeyahay. Trump ayaa waxa uu ku leeyahay Netanyahu maxaa yeelay aniga ayaa hadda adiga ku badbaadinaya. qof kasta waa uu ku necab yahay sida aan ognahay. sidoo kalena qof kasta waa uu necab yahay Israa'iil sababta waxyaabaha adiga aad samaynayso macnaha arrimaha Gaza iyo Lubnaan wuxuu ka samaynayo ayuu ula jeedaa. marka wuxuu leeyahay qof kasto adigana waa uu ku necab yahay Israa'iilna waa uu necab yahay. waxa xitaa wararka qaar ay sheegayaan in Trump uu Netanyahu uu ku eedeeyo yiri war ninkan maba iiga mahad celinayo waxa aan u sameeyay maxaa yeelay hadda haddii uu ku sii socdo duqeyntan iyo weerarkan uu ku qaadayo wadanka Lubnaan gaar ahaan magaalada Beirut waxa ay noqonaysaa arrintaasi mid sii xumaysa xaaladda oo Israa'iil xaaladeeda sii xumaysa islamarkaana wadahadaladii Trump kala dhaxeeyay Iiraan meel dheer ku sii rida. marka wararku waxa ay sheegayaan in Trump caradaasi uu kala dul dhacay Netanyahu islamarkaana uu caayay. waxa uu xaqiijiyay Trump tallaabooyinkan Israa'iil qaadayso inay sii adkeynayso nabad Mareykanka iyo weliba Iiraan ka dhex dhalata. waxaan ognahay in Trump cadaadis xoogan uu gudaha ka saaran yahay doorashooyinkii xilliga dhexe 5 bilood ayaa ka dhiman. sicirkii shidaalka
mar sare ayuu u kacayaa mar wax yar ayuu hoos u soo dhacayaa marka Trump waxa uu doonayaa in Iran heshiis uu la gaaro laakiin Iran waxay leedahay inta Lubnaan dagaal uu ka socdo inagana wax heshiisa ma ogoleen sidaas darteed ayaa caradan keentay in Trump shalay uu caayo Netanyahu haddaba Netanyahu Trump shalay markii uu soo qoray qoraalka uu ku leeyahay Netanyahu waa la hadlay isla markaana waa uu ogolaaday in uu joojiyo dagaalkii uu ku qaadayay Beirut ciidamadii ku sii socdayna waa la soo celiyay Xisbullahina waa la hadlay oo waa ay ogolaatay inay joojiso duqeynta ay ku hayso Israa'iilna sidoo kale dhankeeda waa ay joojinaysaa laakiin Netanyahu hadalkaasi ka duwan ayuu isaguna bartiisa X ku soo qoray waxa uu ku soo qoray bartiisa X Netanyahu caawa waxaan la hadlay madaxweyne Trump waxaana u sheegay haddii Xisbullah aysan joojin weerarada ay ku soo qaadayso magaalooyinkeena iyo dadkeena Israa'iilna waxa ay weeraraysaa kooxaha argagixisada bartilmaameedyadooda oo ku yaala Beirut waxaana uu sheegay in tilaabadaasi ay tahay mid aan weli isbedelin wuxuu yiri annaga mowqifkeena weli halkaasi ayaan taagannahay arrintaasina waxaa garab socdo yiri in ciidamada Israa'iil ay sii wadi doonaan howlgaladoodii qorshaysnaa oo koonfurta Lubnaan ay ku qaadayeen marka Trump hadalka uu bartiisa Truth Socialka ku soo qoray iyo midkan uu soo qoray Netanyahu gabi ahaanba waa ay kala bedelan yihiin Trump waxa uu yiri Israa'iil waa ay ogolaatay in howlgaladii ay Beirut ka sameyn rabtay ay joojiso isla markaana Xisbullahina sidoo kale waa ay ogolaatay laakiin Netanyahu wuxuu leeyahay annaga mowqifkeena weli sidiisii waaye isma bedelin isla markaana waan sii wadi doonaa weeraradeena qorshaysnaa ee koonfurta wadankaasi Lubnaan marka labadooda waxa muuqatay in hadda khilaaf weyn uu soo kala dhaxgalay isla markaana xaaladoodu ay laba meel kala taagan tahay marka waan arki doonaa sidoo kale arrimaha Trump iyo Netanyahuna waxyaabaha ka soo kordha Iran weli mowqifkeedii ayay ku adkeysanaysaa oo wada hadallada ay Trump ilaa iyo shalay markaas kadib arrimaha Iran ma uusan ka soo hadlin markii uu soo qoray oo kaliya wada hadallada Iran si xawliya ayay ku socdaan wax ka bedelan ma uusan soo qorin ilaa iyo maalnimadii shalahayd waan arki doonaa asxaabi waxyaabaha kale ee soo kordha halkan ayaa idinka soo gudbin doona aad iyo aad u mahadsantiin intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo